بقايا على دورته شدني ضيع دادين كره على دورته شدني ضيع دادين كره على دورته دوري على دورته عبد واد الجير عكره وقدر قريلا إساق الدلدلول كتير داوين يا على دورته قريلا إساق الدلدلول كتير داوين يا على دورته ودي قندل لا شرعي قد بقايا على دورته ودي قندل لا شرعي قد بقايا على دورته شدني ضيع دادين كره على دورته شدني ضيع دادين كره على دورته ودي قندل لا شرعي قد بقايا على دورته ودي قندل لا شرعي قد بقايا على دورته شدني ضيع دادين كره على دورته شدني ضيع دادين كره على دورته دوري على دورته عبد واد الجير عكره وقدر قريلا إساق الدلدلول كتير داوين يا على دورته قريلا إساق الدلدلول كتير داوين يا على دورته ودي قندل لا aad baan ka mahad celinaynaa qorraxda iyo waqtigan ugu bixiseen qiimaha badan mar labaad waxaan leeyahay maareeye cabdiraxmaan ahna musharax golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane musharax waa maasan tahay soo dhawow degmadaadii gaalkacyo ku soo dhawow runtii wax weyn bay noo tahay adigoo mas'uuliyad weyn ka haya dowladda federaalka inaan maanta mar labaad isku soo taagto matalaadii shacabkan aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaa degmadaadii gaalkacyo waxay degmada gaalkacyo nasiib u yeelatay inay maanta martigeliso 11 kursi oo ka mid ah runtii golaha shacabka maareeye gaalkacyo ku soo dhawow waa dareemaysaa shucuurtooda kuu muujiyeen macnaheeduna waxa weeye miisaanka ugu fadhisid mas'uuliyadda maanta ahaysid waxay kugu barteen iyo waxay kaa xisaabsanayaan iyo maanta halka u socoto marka mar kale waxaan leeyahay dhammaantiin bulshada reer gaalkacyood qaybaheeda kala duwan waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin qorraxda iyo dadaalka aad ku bixiseen runtii horumarinta deegaanka qayb ka tahay soo dhaweyntu waa horumarinta qayb ka mid ah runtii sababtoo dadkiina matali lahaa baan kaliya laaba soo dhaweynayna musharax ku soo dhawow gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo waa deegaankii aad u dhalatay waa deegaankii aad kursiga ku lahayd cidna kaama xigto cid go'aanka gobolka mudug iyo degmadu isla qaateenna waxay ka mid tahay cid kasta oo musharaxa inaan soo dhoweyno oo aysan kala ahayn hebel baa mudan iyo hebel baa mudan waayo annagu kursiga lagu tartamaya annaguna matalayaa odayaasha dhaqameedkana waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyaddaas adag qofkii loo dhiibi lahaa inay ka fiirsadaan sida mas-uuliyaddaynku aan idinkugu dhiibannay oo aan u nidhi matalaadda kursiga idinkaa mas-uulka ah dawladdu idiin tiri shacabka gobolka mudug idiin yidhi qofkii u matali lahaa oo u turi lahaa oo u nuxi lahaa oo horumar gaarsiin lahaa mas-uuliyaddaas dusha in ka saaran tahay nimid annaga wasiirradaahi dhuusamareeb oo 300 kilomitir u dhowaada oo waddadu ay xun tahay dad badan uguma aanan nimaadneen laakiin kuuli waxay muujinaysaa in dawladduna ku jeceshahay dadkuna ku jecel yahay inaad timaadana la jecel yahay laguna taageersan yahay taas marka way kuu muuqataa waana kuu sheegaynaa waana kuu ballanqaadaynaa qorraxda la taagaya awgeed innagu war ma harin waxaan rabnaa inaad adu labada kelmaad waa dhihilaadeen kugu soo wareejinno gaalkacyada ku soo dhawow rabati ku soo dhawow muqaalifalaan ku soo dhawow midnimo ku soo dhawow rajo fiican ku soo dhawow nasiibkaaga ku hogaaminaya ku soo dhawow guulya barwaaqo ku rajaynaya waxaan aaminsanahay maanta haddee halkaan hadal badan kama furno airboortkii ayaan joognaa waxaan u mahad celinayaa qabanqaabadii iyo xafladdan quruxda badan ragga ka soo shaqeeyey oo wakhtiga iyo juhdiga iyo dadaalka badan geliyey
waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin maamulka iyo dhammaan asxaabtii iyo wasiiradii halkaa nagu soo dhoweeyena waa u mahad celinayaa waxaan rabaa si gaar ah maayarka iyo tiimkiisii oo ayagana garab istaag noo muujiyo waa u mahad celinaynaa kursiga halkan yaalla oo aan rabno inaan ku tartanno u imaannay waa kursi aan wada leennahay waxaan rajaynaynaa inuusan calgaagtan ka dhicin dad walaalaa oo isjecel ayuu dhex yaallaa waa siyaasad waa maalmo yaro oo muxuu ahaa qandha ay leedahay waxaan rajaynaynaa haddaan aniga ku guulaysana inaan ballanqaadkii iyo waxtarkii aan rabay inaan ku soo siyaadiyo inaan aan sii laba jibaaro hadduu qof kale ku guulaysana waa la garab taagana waa la shaqaynaynaa insha allahu tacaala waa dhowahay magaaladeedii waaye in waxaan rabaa cadowga iyo duulaanka iyo dhiilada halkan ka jirto oo annaga si gaar ah aan u danaysannahay maamulkan iyo deegaanka in weerar lagu yahay waxa uu nagu hayay xamar waana ka shaqaynay waqti badanaan gelinay waxaan aaminsannahay garab istaag iyo inaad u aheedeen muxuu ahaa muuqaal aad u wanaagsan inaad soo dirteen in cadowga layska dhacsho waan idin garab taaganna waan kala shaqaynaynaa wax alla wixii annaga maskaxdeenna iyo muuqaalkeennana waa ku xoojinaya waana tegaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin waa dhowahay war waa noo dambeeyaa waan idinkaga mahad celinaya soo dhoweyntiina